runtii magaalada Togdheer isbedelo badan baa ka dhacay waqtigii imika aad joogteen. Intaan intaa u gelin horta magaaladii Burco iyo noloshii imika bal xog naga sii. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magaalada Burco way nabdooneyd aad iyo aad bay dee u fiicnayd xaaladeedu duruufaha naturalka mooyee sida kale xaalkeedu nabad qab bay ahayd si fiican ba loogu noolaa oo deganayd laakiin waxaa jirtay xaalado abaare oo saameyn dee ku leh oo xilligii jiilaalka oo dayruwa baa jiray hawshaas oo ah dee serious ah marka arrimaha abaaraha mooyee oo dadku hayaamay oo hawdka fog u hayaamay dee kuley saameyn bay ku leedahay duruufihii hore ee dee dagaalada bariga iyo howlahaasina inkastoo aan in dhaweylo dee dagaala dhicin haddana dee tiihoodii waa jiraa oo dee way la nooshahay marka si guud xaaladda seriouska una jirta waxa weeyaan in abaarahaas ay jiraan. Khalid, abaarahaas runtii geeska Afrika oo dhan way ka sameyn yihiin oo biyo la'aantu way jirtaa. Burco waxay ku xidhan tahay markaasi miyigay ku xidhan tahay inta badan. Marka abaarahaas markay ka dhacaan Burciyo nawaaxigeeda ama gobolka Togdheer nawaaxigeeda saameyn dhaqaale intee leeg bay magaalada u keentaa? dee horta se tahay Burco waa magaalo xoolahaado sayn la socno waana dee waxyaalahay ku xidhan tahay wax ka mid ah reer guraaga iyo xoolaha noloshiilida ugu weyn ba geeska ku taala dhaqdhaqaaqeeda suuqeeda iyo marketkeeda ku xidhan dee nolosheena oo dhan baa ku xidhan marka normally xilliga abaaraha dee wax la galaa xaalad adag oo dee dhaqaale yari ah mar dee xoolihii oo aan imanayn oo xilli abaareed ah iibkoodii suuqii hoos u dhacay mar labaad dee kharash extra loo baahan yahay abaaro biyo dhaamis iyo hayaan iyo hawlo iyo arrimo noocaas ay soo kordheen iyo cunto yariba marka dee culeys weyn oo saameyn aan